وحقاق داودية tit for tat Tom and Jerry sheekadii ahayd waxaa samaynaya Maraykan iyo China. haddaba maanta China waxa ay shaaciyeen in Maraykanka ay dul saari doonaan canshuur gaaraysa 84%. kuwii hore loo dul saaray Maraykanka weli sidoodii weeyaan way jiraan, laakiin 84% canshuur oo dheeraad ah ayaa la dul saarayaa Maraykanka kadib shalay markii canshuurta la dul saaray China ee Maraykanka uu dul saaray ay gaartay 104. Maraykanka dhowr jeer oo kala duwan ayuu wuxuu dul saaray canshuurta tariff alaabta ka imaata China. ugu dambeyntii shalay waxay gaartay 104%. China oo markaa ka jawaabaysa ayaa waxa ay Maraykanka dul saartay 84%. kuwii hore alaabta ka tagta Maraykanka ee aada China la dul saaray weli waa sidood way jiraan, laakiin waxa dheeraad ku ah 84% oo China maanta dul saartay Maraykanka alaabta ka imaata. sidoo kale China halkaasi kuma aamusin oo hore ayay u socotay oo waxa ay samaysay shirkadaha Maraykanka ayaa waxa ay ku dartay liiska shirkadaha aan isku halaynta lahayn. sidoo kale waxay samaysay shirkadahaasi waxay ka mamnuucday in ay Maraykanka wax ka dhoofiyaan oo China u dhoofiyaan, ama China ay ka soo dhoofiyaan oo Maraykanka ay keenaan, ama in xataa maalgelin ay sameeyaan ayay ka mamnuucday. China waxay taagan tahay Maraykanka kama baqayno. wasiirkoodii ganacsiga oo hadlay wuxuu yiri Maraykanka wuxuu sameynayaa qalad kale oo hor leh ayay sameynayaan. China-na ma cabsanayso, dadkeedana ma baqi doonaan. haddaba banooniga wuxuu ag yaalaa Donald Trump, waxaana laga warsugayaa siduu uga jawaabo. aan ku weydiiye sidee u aragtaa dagaalka China iyo Maraykanka? haddii aad igu cusub tahayna kusoo biir Shaaciya One Show, like ha ilaawin, qaybta commentiga kusoo qor wixii ra'yigaaga ah iyo su'aashaas jawaabteedii. hana ilaawin muuqaalkan in saxabtaadii aad la wadaagto.